daba su'aalaan isweydiinayna waxa kamid ah madaxweynayaasha kililada gaar ahaan madaxda Soomaalida ee kililka deegaanka Soomaalida diidma qayaxan ma kala hortagi karaan xukuumadda Itoobiya maadaama ay go'aankan adag qaadatay isla markaana la filayo in uu dhawaan soo baxo go'aankaasi waxa la leeyahay ciidamada liyuga gaar ahaan ciidanka liyu booliska ee deegaanka Soomaalida ka howlgala qayb kamid ah waxa lagu dari doonaa ciidanka militariga dawladda Itoobiya halka qayb kale howlgab laga dhigi doono qayb kalena la iska fasaxi doono kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka iga daawanaysaan waa shaashada LM24 TV shabakada Lababaan Media qodobka xiligan miiska inoo saaran waa qodob xasaasi ah isla markaana ka hadlaya xog sir ah oo laga helay wasaaradda difaaca dawladda Itoobiya taasi oo sheegaysa in gabi ahaanba dawladda Itoobiya ay go'aansatay in ay burburiso ciidamada kililada ee liyuga haddaba intaan u guda galin muuqaalkan waxaan ka codsanayaa inaad page-kan soo follow gareysid isla markaana muuqaalkan sii share gareysid lagna saartid wixii aragti aad qabtidna aad hoos inoogu soo qortid xogo hoose oo laga helay wasaaradda difaaca dawladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegaysaa in ay wasaaradda difaaca dawladda Itoobiya iyo guud ahaan xukuumadda ra'iisul wasaare Dr. Abiy ay doonayso in ay wiiqdo awoodaha ay leeyihiin kililada taa oo loo soo marayo in la tirtiro guud ahaanba ciidamada liyuga ee kililada markii aad maqashid ciidanka liyuga waxa kugu soo dhacaya ciidamada liyu booliska ee heer deegaan dawlad deegaanka Soomaalida balse waxa jira ciidamo kale oo liyu ah oo qaabka ciidanka liyu boolis u dhisan yihiin oo kale u dhisan kuwaas oo ku howlgala guud ahaanba dhulweynaha Itoobiya gaar ahaan ismaamulada kililada sida Anfarta Oromada Soomaalida Amxaarada iyo gobollo kale oo ka tirsan dawladda Itoobiya haddaba waxa la isweydiinayaa maxaa ku soo beegay xilligan in dawladda Itoobiya ay tirtirto ciidamada liyuga ee kililada hoostaga dawladda dhexe waxa la sheegayaa in dawladda Itoobiya ay walaac xoogan soo food saartay kadib markii sanadihii ugu dambeeyay dagaal faraha looga gubtay ay la gashay kililka ka dhisan waqooyiga dalka Itoobiya ee Tigray kuwaas oo 30 sano ee la soo dhaafay dalkan ka talinayay haddaba dawladda Itoobiya ayaa cabsi ama walwal soo food saartay ah in ay soo xoogaysanayaan ciidamada kililada ama ismaamulada kililada taas oo ay ka cabsi qabto in dawladda dhexe isku taagaan kililadu maadaama ay mararka qaar dhacdaan kacdoona heer shacab ah kuwaas oo galgila guud ahaan deegaanada iyo dalka Itoobiya haddaba su'aalaan isweydiinayna waxa kamid ah madaxweynayaasha kililada gaar ahaan madaxda Soomaalida ee kililka deegaanka Soomaalida diidma qayaxan ma kala hortagi karaan xukuumadda Itoobiya maadaama ay go'aankan adag qaadatay isla markaana la filayo in uu dhawaan soo baxo go'aankaasi iyo xagee la geyn doonaa ciidamada kililada haddii meesha laga saaro dadku waxa ay leeyihiin dawladda Itoobiya waxay awood u leedahay in ay markaa awaamirteeda ka fuliso deegaan kasta oo iyada hoostaga sababtana waxa lagu sheegayaa in xukuumadda Addis ay la falgasho ama ay dhuuxa ka gasho xukuumadaha heer deegaan oo inay awood muuqato ku leedahay waxa la leeyahay ciidamada liyuga gaar ahaan ciidanka liyu booliska ee deegaanka Soomaalida ka howlgala qayb kamid ah waxa lagu dari doonaa ciidanka militariga dawladda Itoobiya halka qayb kale howlgab laga dhigi doono qayb kalena la iska fasaxi doono dhanka kale dawladaha kililada waxa loo ogol yahay baa la leeyahay in ay yeeshaan booliska traafikada ama jibriga waxyaabaha loo yaqaano in loo ogolaan doono haddii eebba yiraahdo sidoo kale dawladda Itoobiya waxay qodobkani xooga u saaraysaa in ay meesha ka baxday awoodii ciidanka militariga dawladda dimuqraadiga federaalka Itoobiya oo waayadii hore ciidanka militariga dawladda Itoobiya waxay ahaayeen kuwa ka tilmaaman geeska Afrika waayadii dambe sidii ay kililadu u sameysteen ciidamo gaara waxa meesha ka baxday buunbuunintii ciidanka militariga dawladda Itoobiya ay lahaayeen halkaas oo ay ku soo koobnaatay in aragtidooda uu ka shaqeyso madaxtooyada dhexe ee magaalada Addis haddaba dawladda Itoobiya waxay rabtaa in ay soo celiso saaxadii awoodeed ay geeska Afrika ku lahayd sanadihii la soo dhaafay halkaana ay ciidamada kililada ka saarto labada qodob ee ugu waaweyn waxa ay qubradu ku tilmaamayaan in ay dawladda Itoobiya ay cabsi ka soo food saartay in dalku gobollo u go'o isla markaana laga hor yimaado dawladda dhexe maadaama dawladdu ay dagaal qaraar la gashay gobolka Tigreega isla markaana cawaaqib adag laga dhaxlay
wadankuna uu markaa saameyn ku yeeshay dagaalkaasi sidoo kale goboladu ma diidi karaan sabab la xiriirta in aynan qarashaadka ciidamada bixin karin kililada in la burburiyo teedan kale ismaamuladu kama hero iman karaan dawladdu oo waxa meel ool ka ah dibiga gowrac weyshu haquus qaadateedii dawladdu sida ay ula dhaqantay ama talaabadii ay ka qaaday Tigreega ama xukuumadda ismaamulka Tigreega taa oo Tigreega ku qasabtay in ay dib isu soo dhiibaan waa xog la isla dhaxmarayo isla markaana ay bulshadu saacadii u dambeysay hadal haysay haddaba haddii ay dhacdo in dawladda Itoobiya ay ku guuleysato in dhammaan kililada ay ciidamada liyuga ay qaramayso isla markaana ay ka dhigto ciidan federaal ah oo dawladda dimuqraadiga federaalka Itoobiya oo howlgala waxa ay dawladda Itoobiya gacanta ku dhigi doontaa ay rajo u yeeri doontaa ama ay rajo u yeeri doontaa riyadii Itoobiya ahayd inay mar kale halanto awoodii geeska Afrika halka adiga daawanaysan waa shabakada LM24 TV intaan barnaamijkan barnaamij laacayna ku kulmi doono nabaday daawadayaal